haddaba yacni dadka karaamaadka lagu irsaaqay ee wanaagsanaa ee daraja istiqaamadana darajada ugu sarraysa ka gaaray waxaa ka mid ah wa miman kaana calaa haadihi alxaala dadkii yacni wanaaggaas weyn la siiyey ee yacni lagu irsaaqay karaamadaas waxaa ka mid ahaa sayidunaa saciid ibnu jubayr ninkii taabicigaa saciid ibnu jubayr la odhan jiray radia allahu tacaala canhu xukiya waxaa la wariyey ana alxajaaj binu yuusuf ninkii xajaaj binu yuusuf la odhan jiray ee dhibka badnaa ee dadlayska ahaa caamalahu allaahu bima yastaxiquhu irshad ilaahay ha kula mucaamaloodo wixii uu mutaystay ninkaas wuxuu mutaystay uun in la cadaabo weeye xaga ummaddii buu eber ka dhigaya asxaabu rasuulillahi iyo taabiciintii iyo dadkii wanaagsanaa o dhan buu laayay lamaa balaqahu markuu soo gaaray amru hada sayid ninkaanu saciid binu jubayr markii loo sheegay arsala ilayhi qaa'idan nin buu u diray ciidan wato yusamaa lagu magacaabo almutalamis binu laxwas wa macahu 20 rajulan 20 nin buu yidhi wado min ahli shaam min khaasati asxaabihi dadkii uu ku kalsoonaa ah raadiyu ninkaa meelu jiraba soo qabto saciid binu jubayrna wuu iskaga carray oo meelaha duurku iska galaybo markaasay raadinayaan duurkaasay ka raadinayan ayagoo daydayayo dee waxay soo mareen nin yacni suufi ahoo nasaar ahoo meel sawmicaa ku jiro sawmicadiisii isaga jiro fasa'aluu canhu way weydiiyeen ninkaasaan doonaynaaye nin yacni saciid binu jubayr la yidhahdo ma aragta markaasuu wuxuu ku yidhi bal sifeeye see u egyahay way u tilmaameen markaasuu wuxuu yidhi war halkaasuu joogaaye ninkaas cibaadada badan soo maaha meeshaa ka raadiya fandalaquu way tageen fawajaduuhu saajidan yunaajii biaclaa sawti asagoo ilaahay la munaajoonayo sujuud ku jiray u tagay markaasay u dhowaaday way salaameenoo waka markaasuu markuu salaaddii buu taam yeelay markuu salaaddii ka baxay ayuu salaamtii ka radiyey faqaaluu lahu waxay u yidhaahdeen arsalana alxajaaju ilayk xajaaj baa noo soo kaadireeya fa ajiibhu ajiiboo na keende qaala wuxuu yidhi walaabudda min alijaabati waa lagama maarmaya inaan u taga miyaa waa lagama maarmaan miyaa qaaluu waxay yidhahdeen laabudda ilaa waa inaa u tagto waana la soo diray dee qasab baana looga dhigay inaan ku keenno meelaad joogto faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa atnaa calayhi wuu ammaanay wasallaa calaa nabiyi moxamed sala allahu calayhi wasalam uma qaama wuu istaagay famashaa macahum wuu raacay xata intahaa ilaa dayri raahibi ninkii suufiga ahay oo soo tilmaamay bay mareen faqaala raahibu wuxuu yidhi yaa macshara alfursaan asabtum saaxibakum ninkii saaxiibkiina waa soo hesheen miya aad doonayseen qaaluu waxay yidhahdeen nacam faqaala lahum wuxuu yidhi oo meeshay rabaan inay caawo baryaan oo de berri ka sii baxaan wuxuu yidhi iscadu dayra war guriga kor u soo fuula fa ina alubuwata iyo walasada ya'wiyaani xawla dayr habeenkii markii la gaaro gobolku dhaco guriga dhinacyihiisa waxaa soo dhoobanayay libaax yacni lubuwada waxaa la yidhaha goosha asadkuna waa libaaxi aarka hawa marka halkan libaaxyo fara badan baa soo dhanay oo gool iyo aarki iyo wixii o dhan baa soo wada fadhiisanaye guriga soo gala libaaxu yuusa idin dil intuuna gabalku dhicin soo gala guriga fafacaluu dalika kulligood gurigii bay ku carareen wa abaa saciid an yadkula dayr anigu ma galayo bur guriga banaankanaan iska joogay saciid binu jubayr waa diid faqaaluu lahu waxay u yidhahdeen maa naraaka ilaa turiidu alharaba mina waxaad rabtaa banaankaan seexan intaad tidhahda inaad caawa naga dhuumato soo maad cararto yaa rabtaa saciidow qaala wuxuu yidhi laa ma cararayo walaakin laa adkhulu ma gelayo manzila mushrikin abadan gaal gurigii anigu ma gelayo bu halkanaan iska joogaya mana cararayo idinkama cararayo aniga ay qaaluu waxay yidhahdeen fa innaa laa nadacuka annagu kaa tegi mayno fa ina sibaaca taqtuluka haddii haddaad gaalka iyo maseenkaaga tagnaadee wax meeshan libaaxyaa soo dhoobanayaan libaaxaa ku cunaye qaala saciid wuxuu yidhi ina macii rabbii war aniga rabbigay baa ila jiro yasrifuhaa canii ilaahay baa iga iilaye oo wax iga waarideeyeyna ilaahay baa ii yeelaya wax dhibaato ay gaari maayaan horta iska xarooda guriga iska gala seexda adigu qaaluu waxay yidhahdeen afa anta min alambiyaa oo markiisaa lagu ilaalinaya ma nabi baa taadu qaala wuxuu yidhi maa ana min alambiyaa anigu nabiyada ka mid ma ihi ambiyada ka mid ma ihi walaakinii cabdun addoon baanahay min cabiidillahi ilaahay addoomihiisa ka mid a khaadi'un oo gabsan oo mudnibun oo weliba dembiile ahoo dembi galay marka ilaahay baa ilaalinaya addoon baan ahay fa qaaluu waxay yidhahdeen ixlif lanaa loo dhaaro alla annaka laa tabrax inaadan meeshaa ka tegaynin noo dhaaro fa xalafa la wuu u dhaartay inaanan meeshaan ka dhaqaaqaynin baan wallahi idinkugu dhaaranayaabu wa cinda daalika buu qaala lahum araahib wuxuu yidhi way ka tageen marka gurigay ku careen war bal adinku guriga soo galo oo yacni marxaban wa awtaru lqisiya litanfiru ayahay ay sibaacu inay cararto guriga intaad soo gashaan bahal dawan la yidhaahdo ay awtaarta
yaan dhawaajinaysaa dhow ka siiya bal ninkaan hadduu diiday inuu guriga soo galo bal inuu ka cararo yani libaaxu uu ka cararo waay yani inuu libaaxu cuno ayaan ka yaabaya ninkaan bahal gurigii bay iskaga xaroodeen bahalka dawankii la yeeri la garaac waay waxba libaaxi waabaka iska socdo markiiba iyadoo la dhowrayaba gooshii baa soo baxday libaaxa mooday sida badan gooshaa hor kacdo waay goosha ayaa hor kacdo marka gooshi baa soo baxdayba say usoo socotay marxaban falamaa danad min saciid markay usoo dhowaatay tamasaxad bih uma rabad intay sidaas yani u taabatay bay agtiisa iska fadhiisatay agtiisa hayay iska fadhiisatay markaasaa haddana waxaa soo baxay aarkii baa soo baxay fasanaca mila dalika asagana saas buu u taabtay ku riigtay markaasuu agtiisa iska fadhiistay waay waxa yeelayo maaha falamaa ra'aa raahibu daalika markuu arkay oo wa asbaxuu ay waa beriisteen sidii baa waaga ugu baryay saciid oo meeshii buu isaga cibaadaysanayey halkaa libaaxiina siduu u agfa fadhiya subxii libaaxi waa iska tegey waa iska galbaday subxii buu soo baxay marka ninkii raahibka ahaa baa soo degay wuxuu yidhi waniyow nin wanaagsan oo ehlu khayr haa tahay bal diintiina nabigiina lagu soo dejiyey bal iiga warran bal ee rasuulkaaga sunnooyinkiisa iiga warran fafasara lahu saciid daalika wuu u fasiray faaslama raahibu ninkii raahibkaa meeshiiba ku islaamay wa xasuna islaamuhu wa aqbala lqowmu baa soo qaabilay ilaa saciid qoladii lasoo diray xajaaj uu soo diray baa saciid yani soo qaabilay yactadiruuna ayagoo u cudur daaranaya wa yuqabiluuna yadayhi wa rijlayhi gacmaha iyo lugahay ka dhunkanaya wa ya'khuduuna turaaba yani aturaaba aladii wadi'ahu bileyl habeenkii meesha waxaa loo dhan ku tukanaya bay carradiisa uga soo qaadanaya markaasi wejiga marsanaya way barakaysanaya lugaha iyo gacmahay ka dhunkanaya niyahow annaga haddee khiyaar ma lihin ninkaad ogeyd baa na soo diray haddaan ku keeni weynana annaga unbu kurka naga jiraya ee adiga annaga maaha waxa ku wadno haddaan moodayna saan kumaana soo doonayn aya haddana wuuna dhaariyey oo dalaaq buu nagu dhaariyey nin walbow naagtaada ku dhaaro haddaad aragta ninkaa inaada ka soo tegay naagtu inay kaa furanta ku dhaaroy dhibbadnidiisa mogta waa nin dhib badan bu xajaaj ay qofku dee wax uuna yeeli karin buu ku qabanaya fiili ku dhaaranaya dalaaq buu nagu dhaariyey marka niyaho noo cudurdaaro haddii uu markoleyba kaas hadduu un kuu geynana un ku dili way ogyihin inuu dili ilaahay agtiisa bal yani inaan ku beri noqono ilaahay agtiisa bal xujo inay noo noqoto annagu waxba kuman dembiga annaga ma nihin waa kan ictidaar bay samayn waxaas waxba mah wuxuu na keena aya anugu wuxuu ilaahay ii qadaray kama cararaye qadarka ilaahay na keena waxaan iska dhaaf ay way soo socdeenoo magaaladii xajaaj uu deganaa baa lasoo galay aya magaaladii waa xajaaj marka magaaladii lasoo gelayo oo habeenkii la hoyanayo ayuu wuxuu yidhi nimayo waxaan arkaa buu yidhi in ajalkaygu soo xaadiray ajalkaygi baa horta soo xaadiray buu marka wuxuu yidhi caawa farta iga qaada ay uhbatal mowt yacni caawa waxaan qaadanayaa mowdkaan u sahay qaadanayaae qabriga iyo meesha cidladahidoo la iseexinayey yaan xusuusanayaae munkar iyo nakiir su-aashoodii baan xusuusanayaae marka caawo yani iska kaydaaye oo ballanku waa noo berri qaarkood baa yidhahdeen dee amaad noo imaan weydaa mid ayaga ka mid aha wuxuu yidhi anaa idiin ballan qaadaya farta ka qaada ninkaan soo ninkaa taqaaneen maha saalixa markaasay direen subxii meeshaan ku ballaminahay sheega gurigaa noogu imo subxi markuu waagu beriya asagii baa albaabka kusoo garacay gow waa kumo saaxiibkiin weeye waa saciid aad baa loo yaabay markii bay soo kaceenoo xajaaj binu yuusuf baa loo keenay xajaaj binu yuusuf ninkii multamis aha ee yani ciidanka watay baa usoo galay markaasu wuxuu ugu bishaareeyey saciid baan wadnaa buu yidhi saciid binu jubayr waa wadnaa halkaa lasoo istaajiyey saciid binu jubayr marka hortiisa lasoo istaajiyey wuxuu yidhi xajaaj binu yuusuf masmuka magacaa qaala wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr baa la yidhaha buui qaala wuxuu yidhi xajaaj anta shaqiy bnu kasiir saciid binu jubayr laguma dhehee shaqi binu kasiir baa lagu dhahaa buui ya hadalxumada meesha ka bilaabay fiiri shaqi baa tahay buu yidhi oo saciidkii magacii buu ka bedelayaa jubayrkiina bimacnaa kasiir buu ku bedelay shaqi binu kasiir baa lagu qaala wuxuu yidhi saciid ummii hooyaday yaa kaanad ahaatay aclamu mid kaa ogo bismi magacayga minka adiga qaala wuxuu yidhi xajaaj binu yuusuf shaqiita anta wa shaqiyat ummuka adiga iyo hooyadaaba waad ur darsateen buu laba ehlu naar baa tihin laba ehlu naar qaala wuxuu yidhi saciid algaybu gaybka yaclamuhu hayruka yacni qofkaan inuu naar geli doono iyo inuu janno geli doono waa shay gaybahe moogta gaybka adiga kayrkaabaa yaqaano buri ilaahay baa og wey qaybka adu waxba kama ogid waxaan noqon doonaa aniga hooyada waxba kama ogid wey uma qaala lahu lxajaaj baa wuxuu yidhi la ubdilanaka waan bedeli bidunyaa adduunyada waxaan kuugu bedelayaa naara laba adduunyadan aad ku nooshahay
وان كاوضا يايو وحن كوكو بدل يا نارتي يعني لضاهد قال وحو يري سعيد لو علمت هدان وقال لها أن ذلك بيدك إن هذه يعني نارت أدوء أدقعنت كوهيسو لاتخذتك إلها إله بمكادق الله أبو فقال وحو يري آيه حجاج فما قولك في محمد محاضر هذا بالكور قال وحو يري سعيد نبي الرحمة وي قال وحو يري حجاج فما قولك في علي بالكور نبوري هل هو في الجنة أم في النار علي ما جنته كجرا مثل نارته كجرا قال وحو يري سعيد لو دخلتهما جنة النار هدان قلي لها أو عرفت أهلا ودتك كجرا أن صارك لها عرفت وأنا قنصل لها من فيه ما دتك كجرا وأن كالوغان لها وأنا كوشيك لها لكن أنا جنة النار ما قلبي دتك كجرا كما ورم دتك كجرا ما شاء وعبك ما أبي قال وحو فما قولك في خلفاء الراشدين محل قال وحو يري سعيد لست عليهم بوكيل أنا وكيل كما يهيبي قال وحو يري فأيهم أعجب إليك كاد أوجع عشان قال وحو يري أرضاهم لخالقي متك إلهي أرالك كي هايوي يعني أوجع لها متك هاي أرضاهم متك أرالك بدن لخالقي خالقي أرالك كي قال وحو يري فأيهم أرضى للخالق كي إلهي حقي أرالك بدن إلهي أوجع ليه قال وحو يري سعيد علم ذلك كاس علم جيسو عند الذي يعلم سرهم ونجواهم آية متك الله وجع لا يلو أرالك بدنا متك يعني أحد كي سرته يعني ظاهر كوذا بأوجا أي علم جاسوك قال وحور حجاج فما بالك لا تضحك محال لقصلين وهذه عن قصلين قال وحور سعيد بن جبير أيضحك مخلوق مياه قصلاي مقصل باوبنا أن خلق من الدين دوبا لقى أبوري والدين دوبدنا يأكله نار تعونيس قال وحور فما لنا نضحك أنا قوة أن قصلين محن ودع مركز توانسل قصلنا نوي قال وحور سعيد بن جبير لم تستوي القلوب قلوبتي إني أنا هقاقين هاي لم تستوي القلوب هاي وحبا منا قرني وي معناها هذه قلوبتي نوح قرت منا قصشين ثم أمر حجاج وحو أمر باللؤلؤية والزبرجتية والياقوت فوضع بين يدي سعيد وح الله وحي جوهر يا اللول يا وحي قروح بدنايا ودنا والدنيا بهيتني مدح واي هل كان صور دقا سعيد بالا صور دقا فقال له سعيد وحويري إن كنت جمعت هذا هداد وحن كل مسي لتفتدي به من فزع يوم القيامة قيامها أرقق حيثوين إن حدين تيسئنا سقفرته فصالح ووحو نفسه وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولا خير في شيء جمع من الدنيا إلا ما طاب وزكى وهي حلاله في علمه يعني وحكى الخير مر ثم دعا الحجاج وحيري بآلات اللهو وحلا وحي يعني موسى كذا يا دربانك يا بلايد اللي قراع يجري ودنبو هذا هلا كان فبكى سعيد فقال الحجاج وحيري ويلك يا سعيد ما حد له أي قتلة تريد أن أقتلك سيتربط أين الكودلو بل دور نوعي أن كودلي لها دور هذه سيتربط أي قتلة تريد أن أقتلك قال وحو يري سعيد اختر لنفسك نفت هذا أن أدور يا حجاج فوالله بان كدارتي لا تقتلني إمدش قتلة هي أتدلت إلا قتلك الله إلهي باكو دلي مثلها أيضا وكلا في الآخرة نوعي أديد سوم بعدين آخر لقو دلي يوم ولقو عذابي ونوعي بلقو عذابي قال وحو يري يعني حجاج أفتريد أن أعفو عنك ما إن أنكو عفيا رتا قال وحو يري سعيد إن كان العفو آية فمن الله آية إن كان العفو عفو آية فمن الله إلهي حقي سهدوية وان روا وأما أنت أديك فلا أديك حقا وحفيون كاروا مجو وحفيون كادوني قال وحو يري اذهبوا به وضعوا فاقتلوه دلع ايش اللي تاغيين مركز دلع كركا كغوي فلما خرج من الباب كمركي لغا ساري ضحك وقص لسعيد فأخبر الحجاج بالله بذلك وقص لسعيد فأمر برد سوء عليه فقال وحو يري ما أضحكك محاكا قصلي قال وحو يري سعيد عجبت وحن لا يابني من جراءتك أديك ديرهنج على الله أتكون ديرهنيسو إيا وحلم الله عليك إلهي سوك وقود القادني ما أرك قف مؤمن أتكسو قضا واد مرنو إلهي سبحانه وسكر دوري وقود القادني بالفيك وحن لا يابني جراء هذا إيو إلهي حلمي جسان لا يابني فأمر بالنضع فبصد بين يديه هل كانوا يركسوا مقاركي بهل ندع هرك ويلا لسبا لي مقارك هل كان كسو جوجل ودتك كو غورعجي ماشي حجاج هرتي ساسا لوو سو جوجل آية وقال وحو يري اقتلوه دلع فقال سعيد وحو يري وجهت وجهي للذي فضر السماوات والأرض حنيفا آية وما أنا من المشركين آية ذات أخرى وجهت وجهي وأن جهيي بوري وجهي للذي فضل السماوات والأرض
حنيفا حالا هيمد إلنا وما أنا من المشركين قال وحي لحجاج وجهوه لغير القبلة حق قبلة كالجهدية حق وسي جهدية قال سعيد وحي فأينما تولوا فثم وجه الله قال ما يشهد وجه سدبه فثم هل كاسوا هاي ثم يعني هاي وجه الله أي قبلة الله فقال سعيد وحي أي كبوه لوجه أفكر لك أقلية يعني ما القبلة بها وجه دنع بها وجه دنينه هوس وجهدي يعني أفكيس لك وجهدي أو مركا هلكا كجورع فقال سعيد وحي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى هذه أرض حق اللي جدي بس دوكا آية منها خلقناكم أرض أمان إنك أبورني وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مركلا لبعضنا ولا إذا كسوا بعينيا فقال الحجاج وحي اذبحوه جورع أحلى كرا يماه جورعه مركز ماشي لمن فقال سعيد وحي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال وحي لسعيد اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي أحد ذنبه وأنيق قداش إله يوها كسر الذي من كان مجرم كان وين أحد أنيق يقدم بي إله وها كسر الذي فذبح سعيد ولا جورعي على النضع بالو جورعي آية فكانت رأسه مدعي سوحوها بعد قدعها مركي لقوية تقول مثل هذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومدحي كل جيوان كل جيبا توحيسنا يمركب أنت لقوية هلكا وقرعي يتوحيسنا ياو وعاش الحجاج ونورا بعد قتلي 15 يوما سنة تنبري كلي وكدم بيوه آية وذلك في سنة 95 يعني سقاشن يسنتي به وكان عمر سعيد وهو 49 سنة فرتن يسقاشن وجري رحمة الله آية تعالى عليه ورضي الله عنه آية في كل جزء من بلادي قصة تروي ضياع كرامة الإنسان هي قصة الإسلام في أوطانه أمسى غريبا كالطريد الجاني هي قصة صاغ الحديد فصولها بمداده الدامي وبالنيران هي محنة الأجيال يرسم بؤسا ضاد عن التحكيم بالقرآن هي قصة الإسلام في أوطاني أمسى غريبا كالطريد الجاني